gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada xudur kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxda heer gobol iyo heer degmo ee gobolka bakool saraakiil iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolkan. gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaybtooda gobolka bakool ayaa gudaha magaalada xudur xariga uga jaray saldhigga booliiska ee magaalada xudur iyo iskuul hoose iyo dhexe oo ay magaaladu ay leedahay. sidoo kale waxa ay si wadajira u dhagax dhigeen xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya xafiiskeeda gobolkan bakool oo dhowaan dhismeeda magaaladan xudur uu ka bilaaban doono iyo garoonka diyaaradaha ee xudur oo dib u dhis iyo ballaarinba lagu samayn doono. si wadajir ay warbaahinta ula hadleen ayuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen waxa uu wafdigan kusoo dhoweeyey magaalada xudur waxa uuna ku baaqay in shacabka gobolkan bakool guud ahaan loo dhammaystiro adeegyada aasaasiga ay xaqa u leeyihiin. waxaan tagnay oo ku bilownay shaqadii wafdigii gudoomiyaha uu hogaaminayay iyo wafdigii koonfur galbeed. waxaan dhagax dhignay xarunta immigrationka gobolka bakool degmada xudur. immigrationka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaha inaan degmooyinka dhan gaarsiino si ay u helaan adeegii immigrationka degmo kasta ay ka hesho maxay ahayd baasboorkii ay u baahnayd iyo ay hesho shaqaalihii iyo dhismihiina waa dhammaystiraynaa sida ugu dhaqsaha badan insha allahu asagaasaan dhagax dhignay. kadib waa kasoo tegnay iskool ay iska kaashadeen hay-adda UN Habitat iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed mashruuc dhismihiisa ahaa ayaan tegnay isagana oo dhammaaday waa soo furnay. waxaan kaloo sidoo kale aan soo marnay saldhiggii biliiska oo isagana sidaasoo kale ay hay-adda dhistay isagana waa soo furnay. guud ahaan shaqooyinka ugu muhiimsanaabay ka mid ahayd. waxaan dhagax dhignay oon codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan hay-adaha ay khusayso ay gacan nooga siiyaan eeraboorka weyn ee degmada xudur. degmada xudur waxay leedahay eeraboor weyn laakiin wuxuu u baahan yahay dhismo, wuxuu u baahan yahay dayactir, wuxuu u baahan yahay in la xiro. marka cid allaaliya ciddii ay khusayso iyo hay-adaha shaqada ku leh oo ay ugu horeyso wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka iyo hay-adihii horey nooga ballan qaaday inay dhisaan sida hay-adda SSF inay sida ugu dhaqsaha badan waxaan codsanaynaa eeraboorkaas eeraboor muhiim ah waaye oo gobolka muhiim u ah degmadana muhiim u ah in sida ugu dhaqsaha badan dhagax dhigga annagaas looga jawaabo oo loo dhiso. guud ahaan kormeerkii ciidamadii iyaan soo marnay. mar labaad soo dhowaada mas-uuliyiintii noo timid. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabka magaalada xudur uga mahad celiyey soo dhoweyntooda. waxa uuna ammaanay dadaalka madaxweynaha koonfur galbeed ee ku aadan horumarinta deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya. waxauna sidoo kale aada ugu mahad celiyey shacabka guud ahaan deegaanada koonfur galbeed ee mar walba taageerada la garab taagan madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed. guud ahaan wali lena una kooyowka kiikana wali ka saabsanayah inuuna xoojina horumarka inta ku dareera khaasatan inuuna xoojina dadaalka isuwada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee mudane cabdicasiis laftagareen dadaalka kiija inuuna garab surugna maadaama uusa horan dareera unuuna xakamna dhiniyaalyaha surugno horan dareerna aanolina muuqata inta markii koyni shacabka gobolka bakool degan khaasatan magaaladan xudur dadan diyaarsan in horumarkaasi iyoona ku qayb qaadadaan. waana wali aaminsanaa dad badan oo doorka la jira khaasatan hay-ado oo dowladda la shaqeeyo oo khaasatan humanitarian ka qaabilsan ama qaar amniga iyo dhini walba kula shaqeeyo dowladda koonfur galbeed in lala shaqeeyey dadaalka oo madaxweynaha wadiyoona dhinijo ha ku suruban. tan kale runtii dib u dhiska soomaaliya geek wali in baahanyaa in hooslaha ku bilaabo in baahan kor walba ku dhismaayeen hooslaha ku bilaabo heer degmo laha ku bilaabo heer gobol la kooye saas isteedkan dhisma madaxweynaha ciidan ka amaanan in uu dib u dhiska hoosa ku bilaabay oo heer degmaha ku bilaabay oo uu geek rooga degmada xudur oo shiid la dhikahoy airportki
la furo hooyo saldhiggii ciidanka booliska liis laku suubiyo ciidankii daraawiishta shiid la dhiko hooyo meel immigrationka ama laanti socdaalka intaasi horumar way oo degmo ku bilaawaday marka wali gabe koralan dareer kor gobolka la deeri kor markaasi kadib guud ahaan state-ka oo dhan horumarkaasi deeri doono Ibraahim Gudle Isxaaq raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Xudur.